wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu maalgelinta badan adduunka, balse noloshiisu waa mid fudud. Ma lahan wax taatuu ah oo uu jirkiisa ku xardhay. Waxa uu haystaa diinta Islaamka, dharkiisuna marna ma dhaafo $10 inkastoo uu yahay bilyaneer. Haddii aad si fiican u fiirisid, ma ahan mid ka haysta baabuurta qaaliga ah, waxaana uu iska wataa gawaarida aan qiimaha badan ku fadhin sida Mini Cooper. Ciyaaryahanka aan maanta ka hadlaynaa waa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Al Ittihad iyo xulka qaranka Faransiiska ee N'Golo Kante. Waxa uu go'aansaday inuu soo iibsado mooto celis ah oo duug ah oo uu adeegsado marka uu doonayo inuu suuqa wax ka soo gato ama uu soo dukaamaysto kolka uu booqdo dalka uu asal ahaanta ka soo jeedo. Taasi waxaa laga yaabaa inay dad badan la yaab ku noqoto, balse waa mid si dhab ah u dhacday. Kante waa nin xishood badan, mana jecla inuu xitaa kor u qaado oo uu ku dabaaldego koobabka uu kula guulaysto kooxdiisa iyo xulkiisa qaranka. Waana tii hadda ka hor dhacday markii xulkiisa Faransiisku uu ku guulaystay koobkii adduunka ee 2018 inuu xitaa ku dabaaldegi waayey koobka adduunka, ilaa markii dambe inta loo keenay lagu yidhi Kante koobka adduunka sawirro ku gal oo ku dabaaldeg. Kante ma xiiseeya inuu ku noolaado nolol raaxo leh, inkastoo uu mushaar malaayiin dollar ah helo, haddana badankood waxa uu u bixiyaa sadaqa ahaan oo waxa uu ku tabarucaa dadka masaakiinta ah ee deegaankiisa. Taleefanka uu isticmaalo Kante ma ahan mid qaali ah oo waa P12. Waa taleefan aad u yar oo xitaa carruurta tuuladiisu ay diidaan inay isticmaalaan. N'Golo Kante marnaba ma jecla in laga duubo muuqaallo ama laga qaado sawirro. Ma ahan sababtu inuu ka cabsado kaamirooyinka, balse sababtu waa keliya xishoodkiisa. Weligaa ma arki doontid Kante isagoo dagaalamaya xilli lagu jiro gudaha garoonka, xitaa haddii la midabta kooro. Si waali ah uguma dabaaldega goolashiisa, mana jecla buuqa badan. Waxaana lagu xusuustaa in keliya uu dabaaldego maalinta ay dhalashadiisa tahay marka uu gool dhaliyo. Si kale haddii aan u dhignana, Kante maba lahan dabaaldeg lagu yaqaano. Marka ay tababarka dhammaystaan ciyaartoyda kooxdiisa Al Ittihad, isaga ayaa qalabka lagu tababartay iyo kubadaha dib ugu celiya qolalka. Waana shaqo uu iskii isugu diray. Kante meel kasta oo uu tago waxa uu kaga tagaa raad is-hoosaysiin ah, ixtiraam iyo naxariis. Inkastoo uu awood u leeyahay inuu ku noolaado nolol hodan ah, haddana wuxuu doortay nolol fudud oo dadnimo ku dhisan. Wuxuu haystaa lacag ku filan oo uu ku bixiyo kirada, caymiska iyo wax walba oo noloshiisa ah. Inta kalena waxa uu ku bixiyaa gargaarka iyo horumarinta bulshada uu ka soo jeedo. N'Golo Kante ayaa maalgeliyey isbitaal casri ah oo laga dhisayo magaalada Bamako ee dalka Mali, kaasoo ku kacaya $5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Isbitaalkan waxa uu diiradda saari doonaa daryeelka carruurta iyo caafimaadka qoysaska danyarta ah si loo hubiyo in bulshada aan awoodda lahayn ee jilicsan ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh. Kante oo ku dhashay Faransiiska waxaa dhalay waalidiin ka soo jeeda Mali, hadda ayuuna dib ugu abaalgudayaa dalka ay waalidiintiisu ka soo jeedaan oo uu ku abtirsado. Waa tusaale kale oo muujinaya qalbiga deeqsinimada leh ee Kante. Waana ciyaaryahan weyn oo ka fikira dadka, maalkiisa Allah u barakeeye. N'Golo Kante ayaa tusaale nool ah oo caddayn kuugu filan inaad noqon karto xiddig weyn adigoon lumin daacadnimada iyo qalbiga nadiifka ah. Kante keliya ma ahan ciyaaryahan ee waa haliyey dhab ah, wuxuuna xaq u leeyahay in lagu ammaano oo lagu tilmaamo ciyaaryahanka ugu deeqsisan uguna xishoodka badan adduunka. Aan u ducayno walaal Kante.